Dowladda Tanzania ayaa xabsiga u taxaabtay haweeney lagu magacaabo Yang Fenglan oo ah ganacsato u dhalatay dalka Shiinaha. Haweeneydaas oo lagu naaneyso Boqoradda Faanta Maroodiga waxaana lagu xukumay muddo 15 sano oo xabsi ah. waxaa lagu eedeeyay haweeneydaasi inay si sharci darro ah u dhoofineysay boqolaal Faanta Maroodiga. Yang ayaa waxaa lagu eedeeyay inay ka shaqeynaysay mid ka mid ah shabakadaha Afrika ugu waaweyn ee suuq geeya Faanta Maroodiga. waxaana la sheegay inay mas'uul ka yihiin ka ganacsiga Faanta Maroodi qiimihiisa lagu qiyaasay 2.5 milyan oo dollar, kuwaasi oo laga soo gooyay 400 oo maroodi ah. laba nin oo u dhashay dalka Tanzania ayaa waxaa lagu helay dambi ah inay la shaqeynayeen shabakadaasi. Faanta Maroodiga laga soo jaro ayaa waxaa la sheegay inuu sababay hoos u dhac gaadhaya 20% oo 10 sano oo u dambeeyay ku yimi maroodiga Afrika. ganacsiga sharci darrada ah ayaa waxaa dabka u sii huriyay dalabka ka imanaya wadamada Shiinaha iyo wadamo ku yaala koonfurta Asia, halkaas oo Faanta Maroodiga loo isticmaalo in laga sameeyo jijiimaha, dhego-dhegaha iyo wixii la midka ah. Yang iyo rag kale ayaa waxaa xabsiga la dhigay kadib markii lala xiriiriyay inay si sharci darro ah ay dalka Tanzania uga dhoofiyeen ilaa 800 oo Faanta Maroodi ah intii u dhaxaysay sanadihii 2000 ilaa 2014. ragga u dhashay wadanka Tanzania ayaa si isku mid ah waxaa loogu xukumay muddo 15 sano oo xabsi ah. maxkamadda Daarasalaam ee caasimadda dalka Tanzania ayaa waxay amar ku bixisay in la wareego hantida Yang. muddo sanad ah ayaa baaritaan lagu hayay waxaana la xiray sanadkii 2015 kadib markii lagu baacsaday gaari nooca xawaaraha dheereeya ku socda. Yang waxay ahayd ganacsato caan ah oo makhaayad ku leh wadankaasi Shiinaha, sidoo kalena shirkad maalgelin ah waxa ay ku lahayd magaalada Daarasalaam ee wadanka Tanzania. waxaana ay si fiican ugu hadashaa luqadda Sawaaxiliga iyada oo ku nooleed wadankaasi isla markaa ka shaqeynaysay wadankaasi Tanzania tan iyo sanadkii 1970. waxa ay madaxweyne ku-xigeen ka soo noqotay golaha ganacsiga Shiinaha ee Afrika oo xaruntiisu tahay dalka Tanzania. ololaha deegaanka ayaa soo dhaweeyay xariga haweeneydaasi sababta oo ah waxaa loo arkayay inay door weyn ku lahayd ka ganacsiga sharci darrada ah ee Faanta Maroodiga. سعيد أحمد تمريسة ورركة تلفزيون كعالمي جاها ستار.